الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا maanta halka waxaanu ku diyaarinay 10 database access waa qayb ka mid ah office-ka office-ka horta wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo aynu isla wada garanayno office-ku wuxuu leeyahay word-ka waynu wada garanaynaa in wax lagu qoro waxna lagu diyaariyo casharaantana lagu qoro lagu diyaariyo iyo excel oo aynu wada garanayno oo isagana lagu diyaariyo qaybaadka xisaabaadka ee kala duwan lagaga shaqeeyo iyo qayb la yiraahdo powerpoint oo presentationada iyo slide-ada lagu diyaariyo sida imika slide-ka halkan ka muuqda oo kale iyo qayb la yiraahdo access database waxa weeye waa qayb lagu diyaariyo xogaha ama daatooyinka lagu diyaariyo qaybtaas oo ah inay ku shaqeeyaan businessyadoo kale haddaa customer tahay customerka waxaad xogtiisa gelinaysaa database baad u samaynaysaa access iyo waxyaabaha kala duwan ee lagu kaydiyo sida employeenka shaqaalahoo kale waxay qabtaan iyo waxyaabahaas oo dhan ayaa database-ka access-ka lagu diyaariyaa haddaba introduction database access waxa weeyaan waa xog management lagu diyaariyo waa information amba waa xog lagu diyaariyo oo lagu maamulo oo ka caawinaysa sidii wax lagu kaydin lahaa amba xog lasoo ururiyey loo gelin lahaa oo lagu kaydin lahaa taasoo kaydinaysa oo database-ka lagu analyze garayn karo lagu magaranaysaayay lagu sharaxi karo si fududna xogta oo habaysan loo soo daabici karo loona ogaan karo database what is the database access waa maxay database access horta marka koowaad waa Microsoft waana qayb ka mid ah Microsoft-yadii kala duwanaa aan hore soo sheegnay waxaana kaga duwan tahay waa hab lagu maamulo oo lagu diyaariyo xog taasoo xogta lagu kaydiyo ama database-ka lagu kaydiyo haddaba tusaale ahaan database access-ka waxa weeyaan name magacii oo kale ku gelinaysaa description oo kale gelinaysaa status oo kale gelinaysaa city production category oo kale itemkii iyo quantity oo kale dhammaan waxyaabahaas oo dhan ayaa la gelinayaa waa database-ka access-ka qaybta lagu diyaariyo halkan tusaale ahaan waxaan aragnaa creating the orders waxaa ka muuqda file name date iyo tape description iyo file tusaalahan shaxda halka ka muuqato oo kale waa order name iyo meel ku qortan taxi primary key customer name dhammaan xogtii ayaa lagu diyaarinayaa tusaalahan kale ee halka ka muuqda waxa ku qoran product code waxa weeyaan shirkad tusaale ahaan amba waa maqaaxi aan odhan karno amba waa cafeteria iibisa shaah oo kale marka productigii kafeygii code iyo price qiimihii oo ku halkan ka wada muuqda dhammaan waa database ka lagu diyaariyo xogtaas oo kale customer-ka oo kale waa lagu diyaariyaa adigoo magaca gelinaya weight-ka gelinaya date-ki gelinaya description-ka alaabta gelinaya size-ki gelinaya dhammaan xogtiisa oo dhan customer ku yimaada amba tusaale ahaan company-gaaga amba qof amba shaqaalaha iyo customer-ka wax kala iibsanaya tusaale ahaan waxa u diyaarinaysaa qofkii database oo khaasa u leeyahay oo dhammaan kharashaadkiisii kala duwanaa xilligu qaatay waxyaabuhu qaatay oo dhan aad ka helayso daatada markaad si fudud aad xogtii ugu heli karto informationkii oo dhammaystiran aad si fiican ugu heli karto tusaale halka ka muuqda waxa weeyaan employee inkastoo kamaradu ku fog tahay haddana waanu diyaarin doonaa sida ugu shaqeeyo database-ka
informationkii titlekeedu gelinaya otherkii oo kale yeariskii oo kale listen pricekii oo kale publisherkii oo kale waxyaabahaas oo dhan waa database-ka lagu sameeyo. haddaba iminka casharkeennii aynu kusoo sharaxnay powerpointinka ee ahaa access database-kii ahaa ayaynu ku qaadanaynaa practical weliba qaybtii ahayd practicalka ee sidii loo sameynayay sidii loo gelinayayba inagoo samayn doona database. marka la socod wanaagsan. marka waxaa ku dhufanaysaa halka waxaa ku qoran black database baan ku dhufanaysaa. halka waxaa ka soo baxaya file name iyo black database. file nameka waa magac u bixi. marka magac baynu bixinaynaa. waxaan u bixinaynaa tusaale ahaan database 2015. deetana create baan ku dhufanaynaa. markaynu ku dhufanno halkan xog baa taala dhammaan way wada sharixi doonaa laakiin sida u kala horeeya mid kasta waxay qabataa inuu sharaxina. marka meesha create meesha ku qorantay ayaad click siinaysaa. marka table design baan ku dhufanaynaa. marka halkan waxaa ka soo baxaya file name iyo date type iyo description amba optional. marka waxaan halka hore ku qoraynaa id marka ku qorno xagga hore aynu ku dhufanaynaa. halkaa yar baynu furaynaa. marka halkaa yar furno waxaynu gelinaynaa auto number. marka halka waxaa kaaga soo baxaya short taxi oo waqti gaaban baa wax ku qoraysaa loan waqti dheer number large date and time current automatic number yes iyo no all object hyperlinki waxaasoo dhan baa meeshan ku qoran. marka inagu waxaan dooranaynaa auto number maadaama id yahay. xagga ka hoose waxaan ku qoraynaa namekana wuxuu qaadanayaa short taxi. waxaanu kaloo qoraynaa waa price aanu qoraynaa wuxuu qaadanayaa current ama currency buu qaadanayaa. waxaan ku xigsiinaynaa quantity warka isaguna wuxuu qaadanayaa number inta xabeeyin. waxaan ku xigsiinaynaa state isaguna wuxuu qaadanayaa yes iyo no yes amba no. waxaan ku xigsiinaynaa description faahfaahin ka bixi. description wuxuu qaadanayaa sharaxaad dheer. waxaan ku xigsiinaynaa creation date and time baynu markaa halkaa gelinaynaa. waxaan ku xigsiinaynaa category datadiina saas oo samaysanaa. categorygna wuxuu qaadanayaa number. iminka datadiina wayn samaynay.